Soomaaliya ka kaca warka kacatan warka kaca waxa idin haray mare markaan saa idan leeyahay ninka sidaa idan leh waa nin degan oo alxamdulillah shukrillah dhaqan oo madax ma garta halkii oo wax ka maqan aanan jirin adduunka maanta wax ka maqan aanan jirin baa idin sheegaya taa maqlaysa halkii laakiin ka qiiran hayo magacaasayto in godka uu ku jiro meel ka sii fog aan lagu sii riixin روادي مغشان صومه سيوناكسن ما مغلسة فرح عدي هذه سيوناكسن فرح صومالي وحكو رعسنتنا ما تلاقي لي تو رعسنه والله انا اللي نجي لين ولا اي نما ku dhaqan hayo oo dhan oo rabo umada Soomaali oo aan anagu intana la soo gaarsiiyay qiiradan iyo sharaftan iyo qabkan aan maanta haysana iskama imaanin rag iyo dumar baa soo gaarsiiyay maanta inaad god ku ridaan idagama yeelin walaal idaga yeelin in badan baana taan ugu raaci doontaa balaan aragno laakiin hadda golaha wasiirada iyo wixii la midka waxay sameeyeen baarlamaanka midana qabiil wa kana reebel shaqa kuma laha aniga faarax waana la kala xiray maanta isma maqalno ma maqashaa faarax waan ku maqlaa maanta waa la isku keendiray labadeen niyo horta aan idinka update gareeyo golaha wasiiradu arrintan ma diidin update-kaas horta idin siiyo waxaa dhacday markay soo geliyeen oo baarlamaanka ra'iisul wasaaruhu keenay ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri heshiiskan laydiin soo diray WhatsApp baa dadka loogu soo diray officially sidii loo soo marin jiray lama soo marin warqad ahaan looma soo qaybin ajendaha laguma soo dirin wasiiradu ma soo akhriyin WhatsApp baa loogu soo diray waana sababta keentay inay liigareeyaan oo meel walba u diraan waxaa lama soo marsiin wasaaradda cadaaladda oo ahayd inay soo akhrido xeer ilaaliyaha inuu soo akhriyo lama soo marsiin ra'iisul wasaaraha keenay waa dhex dhigay wuxuu yiri xeerkan waa xeer fiican heshiiskan ha laga hadlo hana la ansixiyo marka buuq baa kacay wasiir baa hadlay wuxuu yiri waxaan dadka Soomaaliyeed u ansixin karna ma aha waa wax khariban wasiir kale ku xigsaday isna wuxuu yiri ma garanaysaa waxaan waa ku raacsanahay wasiirkii hore nimanka u badan islaamiyiinta dadka la yiraahdo wadaadada u badan waagi hore wadaadnimo iyo soo maray baa arrintan ku kacay oo ka qayliyay rag waliba aan wax badan oo wanaaga laga baran baa ugu horeeyo qayliye oo dagaalamay markuu arkay ra'iisul wasaaruhu meesha codku u badan yahay oo haddii bahalkan cod la geliyo inuu dhacayo oo burburayo hadduu dhacana ay tahay nabade ayuu la noqday oo wuxuu yiri dib uu la noqday wuxuu yiri waxaan ku celinaynaa wasaaradda cadaaladda u diraynaa procedure-kiibu soo maraya markaa kadib baa la soo celinaya hadda waxay ka shaqaynayaan inay buli gareeyaan oo qof ula hadlaan oo qof walba ay leeyihiin gal oo aqbal oo yeelo oo ay leeyihiin bay ka shaqaynayaan marka khatartii wali waa ina dul hoganaysaa laakiin baarlamaankaa sugaya waxaase wax la yaab leh treasonkaas uu ninkaa wasiirka ahi galay oo madaxweynaha amarkiisa uu ku galay madaxweynaha iyo ninkaasiba treasonous act bay galeen waxay dambi ka galeen dalka Soomaaliyeed sharciyadiisii iyadoo aan baarlamaankii iyo wasiiradii midna la marin bay saxiixeen heshiiskan waana heshiis ay dhihi karaan hadda wuu noo dhaqan galay sida honorable Faarax uu sheegay marka lama diidin Cabdi Wahaab I wish in la diido oo aan ogahay maanta aan ku fadhiyo waa laga samray markii baa la diiday macnaha for good looma diidin mana dhiman sharcigaas حتى يدلبدين سووا معنا قيبتها يعني عربي إن وكينا يعني مكر وحكي كنا درافت أو سومالي كينين درافتي الصومالي قال لو قيبي يقول له وزير لو قيبي كذب وحي يدلبدين يعني هذا وح لو كينا قيبتي إنجليزي جها هذا وح مقلة يعني ده قيبت عربي كنا ولا كينا لكن وح لبا إن حرية جود يقرن كود دي ولا علي ولا وزير هذا هنتي أي وري أي أنصحين شيء كنا عنه قراءة لكن وزيركي صحيحي شيسكن وحو طارده كقال ميل بدو كقالي انتاس وحويان وهشيسكن إما كان كدسكا أن تكهدينا يعني وقت كان حاضر كهالكي باش سو تاقين هاي وحقوها رمركا هشيسكن حدود أقن كلا انت أتشيسا يا كرتمايو إن قفك معنا وحويان يعني أردقيس لو واحد قدبو إن قفك معنا هالسكديلو in detention lagu sameeyo qofka la iska hayo in haba yaraatay cid waxa sameynaya haba yaraatay aysan maxkamad
ama sharci aysan hor iman waxaa ka dhacay yemen yani colombia iyo guatemala laga keenay latin america laga keenay dad micnaa waxa weeye spanish ku hadlayo oo calooshu shaqaystayaal ah waxaa laga keenay south africa kuwa micnaa ayagana calooshu shaqaystayaal laga keenay jinjawid baa la keenay saas sheegaysay oo runtii ayagana lasoo karaystay haddana waxaan maqlayaa ciidamo fara badan oo soomaaliya tababaraysa ay tababarayaan waxay wiilashaas u isticmaali doonaan ilaa hadda lama garanayo ma tolo micnaa waxa weeyaan ma kuwaasay lamid noqon doonaan ma soomaaliya u tababarayaan nobody knows cid hadda garanaysa malaha laakiin waxaa loo baahan yahay madaxda dadka soomaaliyeed inay arrintan runtii ay ka fikiraan in dalkan ilaalintiisa iyo ximaayadiisa keliya aan lagu hadlayn dadka micnaha iminka talada haya aan lagu hadlaynin laakiin qof kasta oo soomaali ah oo mutacalima qalankiisa uu ku halgama qoraalkiisa uu ku halgamo yani gabar kasta oo soomaalida qoraalkeeda iyo qalankeeda ay ku halganto in dalkan waa dal micnaha qani ah oo runtii barwaaqo ah oo runtii ilaahay subxaana wataala khayraad badan uu siiyey oo cimilo fiican leh dadkan ay yar yihiin oo runtii cid kasta qof kastana waxa weeyaan uu damcayo والسلام أنا وحالي question وحاوي article 3 number 3 ها do have دي أمكان كوسا دري أنت قاب كاس بلدا دور استايكرتين article 3 number 3 mahadsanid if it's Farah or Abdul Wahab one of them doesn't matter فرح اللويا استاذ فرح اللويا article 3 qodobka Okay, saddexaad article 3 number 3. ها Okay, article waa 5. secretkii waddanka oo dhan iyo in Oh. cid la xiro iyo wax xiri kara Number 3. Agree to the participation of the second party in investigation. waxa macnaheedu waxa weeyaan baristaada iyo inta CID daada iyo criminal investigation department iyo waxa soo dhanba waa u dhamaatay. The gone. inaa iyaga ku wareeg iyagaasaa dadkii ku dhex soconaya. Yeah, basically it means waxaad ogolaatay inay investigationka iyo information maxay ahayd gatheringkii iyo policing work iyo wixii oo dhanbo oo waddanka qarankii ay shaqaynaya inay iyaga qabanayaan marka waxay u fududaynaysaa inay say doonaan ay ula dhaqanayaan ninkay doonaan say doonaan ula dhaqanayaan haddii aad maanta intaad baarlamaan ka hadasha aad tiraahdo maa maxay waxan ay nagu hayaan haddii aad tiraahdo hadda maalinka dambe adigaa lagu imaan meesha adigoo la investigate garanayo agree to the participation of the second party in investigation and information collections of apprehension of individuals in cases of arrest of individuals. iyagaa soo qabanaya askartaada kuma soo qabanayso iyagaa ku soo qabanaya waraaday maqashaan sooma ay maqashaan war ma lay maqlaa ha ha oh my god si wanaagsan ha فرح waxa weeyaan ku socdo lagu maqlayaa si wanaagsan lagu maqlayaa ha marka waxa weeyaan waa my god it says agree to the participation of the second party in investigations and information collections of apprehension of individuals in cases of arrest of individuals and elements of terrorist organizations and anyone who finances, assists, abets, contributes, or participates in terrorism. horta waxaan la yidhahdaa terrorismka waa iska kachwade reer galbeed hagaajiya sifay u xalaalaystaan dadkay baabiin rabaan yes hadda maanta sooma maanta xasan ha loo sheego xasanow god aad ka shallaytoon doonta soomaaliya ha gelina hadda dheh xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynihii soomaaliya ah ha gelinin ha u horseedin soomaali soo maha ha gaadhe nin allaala ninkii soo dhex galo etoobiya berresantay ilaa xamar imaatay iska dhaadhicisay inay waxtay markii dambe inay ku baryootanto war waddan noo fura aan kaga baxna waddankiina ilaahay mar dambe haddaan kuu soo noqdo muxuu yidhi ninkii mar haddaan anigoo nabad le aan makaalog muxuu yidhi wala anaa kuu soo noqon biir maba kuu soo noqonaya aan ku dhaafo warbay meel iska gaartay markuu dambeysay inkeel baxay biir mar dambe soomaaliya in la galo soomaalidii ogaada waxay tahay hor soomaalida waa ontiyada hedon tiyan weeyaan haddana imaaraad ahaya maraykan ahaya hebel ahaya nin kasta ahaya markii ha gaadhe ay dhiida gaarto meesha u dambeysa la gaaro wax weyn baa iska bedeli doonaa iyagan anaga soomaalida way isqabsan doontaa annaga qaramo kale ka soconaa waanu garab istaageynaa iyagoo shaki kuma jira in qarankaa iyo sharaftaa iyo dhulkaa soomaaliyada laga ilaaliyo cadow way naga go mar kastaba marka taas umbaan leeyahay anigu umbaan hadda rajadaan siinaya laakiin kan in la diido
laga hor imaado la tuuro danbaa ku jirtaa maxaa intuu neef ha sugin neefka lama ka dhumo oo tawa neefka dhumay hala doono oo meel laga soo heli doono ilaahay ogyahay marka soomaaliya lasii daynaya dhumina hadda intay goorta hal yiraahdo oodan ha loo adkeeyo wixii u dhici lahaan oo maaragtay sicdooda ahaad wax kastoo dhan bidhaahdo meeshan wax meelaha u dhacda male ka dhankaa qabso ha ahaadaan maxay ahayd imaaraat ha ahaadaan reer galbeed way iswataa waxaan kulli eric prince ninka la dhahaad garanayseen eric prince oo imaaraadka u tahay oo nimanka familka nato reer abudabi oo annahyaan ahoo maaragtay wax taliye ninka ay gacantooda midig horta ninkaas waxa kama marnana hadda waxyaabaha nato dhacayo eric prince iyo dhaqankiisa iyo wixiisoo dhanba kama marna waana maarin socon jiray waana ciidamahan maaragtay private ka coloshaqaysada ku takhasusay waa qasab kamana maqna maaragtay inuu arrintan ku dhex jira isagii wax lamidka ah oo dhanba marka intaasayto baan hadda aniga aan kaga baxaya aan oranayaa soomaali سؤال ha isku tashato ha isku tashato ha isku tashato gabdhaha waxay sheegayeen hala qaato hala kaca golaha wasiirada ha diidaan baarlamaanka ha diido baarlamaanka haddii shacabka soomaaliyeedna mudaharaad ha sameeyaan ha diidaan wadamada dariska ah oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti internationally waxaa la sheegay wadamada frontline-ka oo dariska la wadanka crisis-ku uu ka jiro inay ciidankoodu involved ku noqdo oo dalkooda joogo is only negative, it's never positive, ever. فيريان عبد الشيخ عبد حسيو dhibka meesha ka jira waxaa waaye yani Soomaaliya political elite kiyaba arrinta rababa busudda mushkiladu waxaa waaye xukuumadda Soomaalida ay saarta ka waran oo ilaa frontline states ka aniga ay soo galaana hadii la cali yani ay dhacday inay aad miska baxdo meesha in macna East African Stammy Force lagu bedelo yani frontline states ka dadka Soomaalida ay u yeerinayo frontline states ka ay u yeerinayo Abdullahi Yusuf waa kii markii ku baaqo laga diiday haddana ninkan wadarkiisa runtu waxa moodaa runtii yani uu ku baaqay arrinteeda ahayd marka mushkilada ugu weyn maanta Soomaaliya haysto waxa weeyaan waa Soomaalida qudooda weeyaan Soomaalida laftikooda waaye ayaga dalka cadow ku ah ayaga ummadii maartay iibinayo ayaga wadanka beecinayo mushkilo idin waxa weeye ninka Soomaaliga ka bilaabata asana ku dhamaata marka yani waxa runtii mushkilada meesha ka taaganta waxa weeyaan يعني problem wuxuu ka taagan yahay wadadkii Somali political elite ayaga runtii yani wax wadanka iibinaya ayaga wadanka micna waxa way wax ka soo gelinay marka waxa laga qaban karaa Cabdi Cabdiyo maxaad ba ka qaban kartaa ay sheegay anigu horta uma arko frontline states ka inay wax wanaag u hayaan Soomaaliya inkastoo hadda markii ay la arka haddana imaaraadka iyo waxyaaba ka sii daranna meesha soo galo waa dhibkeeday leedahay waxaan my position is wadamaha jiraanka wax ilaahay untay oo wanaag u hayaan Soomaaliya ma jirto Soomaaliya ciidankeeda haddii laga shaqeeyo waa ku filan yahay inuu suga qolyahana ka saara meesha iyagana uu suga maxay ahayd wadankana nabadiisa uu sugo iyo peace and security wadanka uu sugi karaa si fudud u sugi karaa geesi waxaan raadinay SSC hada Somaliland waxaan heshiisinayaa cid kale waa horta aqoonsi that is tantamount to recognition maaragtay inay sovereign waxa la yiraahdo ay jirto oo la dhaha Somaliland wax sovereign oo maanta jirto adduunka lagu ogyahay wadanka ugu hore oo maaragtay ictiraafo noqonaya oo la dhaha Soomaaliland horta ma jirto wadamaha jiraanka mid isku dayay karto oo ku dhici karto in ay aqoonsi samayso mise wax loo fasiri kara aqoonsi u samayso wax gooni u goosatay oo Soomaaliya dhexdeeda ma jirto maxaa cid kasta wuxuu ogsoon yahay maanta meeshaad adiga aad mariso waxaad ku dhawaaqdo berri adiga ku soo firiso lagu oranaya cid kastana wuxuu qabaa qowmiyada aanan raalli ka ahayn inay ka mid yihiin مثلا Ethiopia oo kale ninka hadduu maanta uu abiy aqoonsado Somaliland waxa la jirtaa oo qaran Somaliland la dhaho oo iyada dhexdeeda wax dhibaato u dhaxayso oo asaga xalinaya mise cid kale u ogolaanaya inay xaliso mise waa aqoonsanaya cid kale inay xalin karto waxa weeyaan asagii waxaa imaanaysaa kow gobolka Soomaalida oo hadda ka hor la isku qabsaday
laba gobolka Tigray ahaa oo maxay ahayd gooni u goostada ahaa haddii inuu go'o rabo saddex amxaaradii afar cafarto iyada leh maxay ahayd inaan waddan weyn oo cafarto dhan ba isku jirto oo ka soo go'day Ethiopia iyo Djibouti iyo Eritrea oo sida Kurdiyiinta oo kale iyagana xisaabtan kala qabaan horta ma dhawaan karaan cid ku dhici karto Kenya sidiisa lamid xeebta Kenya wallahi haystaa oo qaran kale laga xukumi jiray markii xorriyadda la qaaday baa inta lagu soo kordhiyay maxaa Kenya waxa la oran jiray colony and protectorate of Kenya protectorate waxay ka mid ahayd sultanate Zanzibar bay ka mid ahayd 10 miles strip baa la dhahaa xeebta 10 kilomitir gudaha u gasha lagama xukumi jirin Ingiriiskana shaqo kuma lahayn joogitaanka uu joogayna wuxuu u ahaa حماية بوهم لكن قميستكم موسنهن dadka xeebta waxay leeyihiin annaga markii hore waynu ka duwneen maxay ahayd Kenya oo Zanzibar baan laga xukumi jiray haddana inaan go'naan rabnaa iyo dhowr jeer ay ku dagaalameen oo hataa ay qaateen maaragtay gacan ka hadal ay ka gaadhay hadda ka hor oo MRC wax la dhaha MRC waxa weeyaan waa niman inay goostaan rabeen xeebta Kenya marka cid maaragtay maanta aqoonsan karto in wada hadal loo sameeyo entity Somaliland la yiraahdo entity Somaliland lama jirto goboladii waqooyi waa jiraan Somaliland wixii la oran jiray waa markii British Somaliland la oran jiray taana mar hore laga soo gudbay maxaa adduunka waxa weeyaan waa dynamic maalinba meel bay joogtaa waa laga gudbayaa saan ku sheegay colony and protectorate baa la oran jiray maanta independent republic of Kenya weeyaan marka horta dominion baan ahayn with the queen as a symbolic head waxyaabahaas iska jiraan marka horta Somaliland wax la dhaha oo maaragtay oo caalanku aqoonsan hadda ka dambe ninka aqoonsan doona waa gooni ma jirto ko marka waxa weeyaan waa laba gobol oo maaragtay qabaa'il Soomaali ay degan yihiin ay qolo doonaysa inay kuwii kalena ay ku muqonayso qasabka ay ku qabsato oo maaragtay danahay rabto khaaska ay ka gaarto taana waxa weeyaan waa internal waxa weeyaan dhaqdhaqaaq gudaha waa مثلا galkacyo la isku laayay oo kale weeyaan oo dhanka Puntland dad ka socdaan dhanka kalena galmudug dad ka socdaan oo la kala gaaro waxay la mid tahay galmudug dhexdeeda oo la isku laayay hadda ka hor waa la isku laayay iyo maxay ahayd Dhuusamareeb iyo maxay ahayd hubiyo iyo meelahaas oo dhib ka dhaca weeyaan ma aha xamar korkeeda oo Soomaali qabaa'il isku laayeen ma aha Kismaayo iyo agaarkeeda oo la arkay in la isku laayay hadda ka hor koox iyo maac kasta way isku laayeen taa iyada waxay noqon kartaa wax internal oo la oran kara sovereign state-ki Soomaaliya qarankii jiray oo Soomaaliya ahaa unbaa u ogolaan karaa u saamixi karaa inuu yiraahdo isoo garab qabta way iga ballaaratay aniga waa internal thing waa arrin gudaha laakiin tabarteydii itaalkeygii baa gaari waayey taana aniga u malayn maayo weli inuu xasan ninka la yiraahdo madaxweynaha iyo qaranka Soomaaliya dawladda ka dhisan maanta inay gaartay resolution caynkaas oo kale ay leedahay misana ay aqoonsatay meel ka mid ah inay gooday oo go'itaanka iyaga ogoshahay oo la dhaxgalay iyagoo qaran kale ah misana ay ogoshahay inay ajnabi ay soo dhaxgalaan iyaga oo ay xalliyaan arrimo maxalli ah oo internal ah oo u dhaxayso dadkeeda iyo shacabkeeda dhexdiisa now a lot of things have got to be cleared waxa la samaynayo has got implication everything oo tilaabo la qaado has an implication under international law marka horta intaasaan kaga baxayaa midan la yiraahdo maxay ahayd SSC iyo maxay ahayd goboladii kale hargeysa waqooyi oo Soomaaliya markii hore jirtay oo awdal iyo hargeysa iyo adigu waxay doontaba hadam